waxay tahay qof kula dhashay oo aan walaalka ahayn qof kula dhashay oo aan walaalkaan ahayn waxay ku kaadbo qof aan kula dhashay aan walaalkaan ahayn xaarka waay xaarka hooyadaa waay maxaa waay xaarka hooyadaa waay walaalkaan ma okay 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 qof oo xiriir jecel niga dhaxay ama xasaabe hadduu kaa dalbado meesha aan kaa taaban lahay oo kaa dalbado intuu yeeli lahayd waa su'aal easy oo lagu soo ogaaday oo la sameeyey daraasado badan way u adagtaa taas anigoo dumar ah inaad meesha aan jecla inaad sheeg aaday u adagtaa oo maxaa sabaynayo bilaa sabab la'aan qof oo xasaabe niga dhaxay waayo oo kaa dalbado inuu meel kaa taabto okay dabcan waa isku daya inaan sheego markaas waxaan jeclahay inuu iga taabto naaska ibtiisa waa ku soo dhawaynayaa waxaad sheegtaa xubin ka mid ah jirkaaga oo sida muuska u samaysan xubin jirkaaga ka mid ah oo sida muuska u samaysan waa maad sheegtaa xubin ka mid ah jirkaaga oo muuska u samaysan sida muuska u samaysan xubin ka mid ah waxaynayaha iyagun waxa weeye wax isagoo qalalan ku gala isagoo qoyanna kaa soo baxa meesha uu kaa galana kaa soo baxa su'aashu waa taa laakiin waa su'aal aad u fudud waxa weeye wax isagoo qalalan ku gala isagoo qoyanna kaa soo baxa meesha uu kaa galana kaa soo baxa waa su'aal labadada naas mid ka mid ah ayaa weyn kee u malaynaysa inuu yahay ma ka midig mise ka bidix maxaa soo galay naasaygana adigu markaad fiirisid waa cilmi baaris la sameeyey in labadaa mid ka mid oo weyn yahay adigu kee u malaynaysa ma ka bidix mise ka midig war haddaan su'aasha kaaga jawaabo waxaa weyn ka bidix oo ka bidix inuu weyn maxaa ku sababays wuu soo yartaagan